salaamullaahi calaykum. halkani waa Samawada TV. colaadii maalmahan ka taagneed gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa xaalkeedu wuxuu marayaa allow sahal. xalay waxaa la dilay macallin dugsi iyo 4 arday ah oo kamid ah ardayda uu Quraanka baro. qaybaha dambana barnaamijka waxaan ku falaaqayn doonaa Cali Yara Cali iyo Saadaq John oo meeg toos ah isku qaatay. aan ku bilaabay laba beelood oo ka wada tirsan beesha Abgaal Ismaan ayaa ku dagaalamayay maalmahan gobolka Shabeellaha Dhexe. waxaa la dilay dad fara badan, dhul ayaa la gubay, beere ayaa la gubay, guryo ayaa la burburiyay, sidoo kale dhuxul ayaa dab lagu qabtay oo caadi ayaa la isku xaalufiyay oo waxba la isku ma reeban. ugu dambeyntiina dagaalkii ayaa wuxuu gaaray Umuladoox oo xalay ayaa waxaa la dilay macallin dugsi iyo 4 arday ah oo Quraan barayay. sida la sheegay macallinka iyo ardadiisa ayaa ka imaadeen Quraan saar, qof xanuunsan ay soo Quraan saarayeen. aana qabiil ayaa loo dilay macallinka iyo ardadaba. sida la og yahay beesha Abgaal Ismaan ma leh dhaqanka noocaas ah. beesha Abgaal Ismaan ma disho biri ma geysada. waxaa kamid ah macallin dugsi, macallin iskuul, nabadoon, dumarka, caruurta, dadka xanuunsan intaasba ma dilaan. balse hadda Abgaal Ismaan waxaa lagu arkayaa dhaqan cusub oo la dhameynayo biri ma geysada. haddii aan leh dumarkii, caruurtii, nabadoonadii, macallin dugsi, oday waayeel arday dugsi dhiganaya, wixii oo dhan waa la isxaalufinayaa. maxay tahay marka sababta ka dambeysa? run ahaantii dagaalkan labadan beelood ee walaalaha ah ee ka tirsan Abgaal Ismaan gobolka Shabeellaha Dhexe ku dhex marayo waxaa dabada ka riixaya siyaasiyiin iyo waliba oday dhaqameedyo. dagaalkan waa dagaal lagu soo qaatay mashruuc ama project. sidoo kale dagaalkan waxaa lagu cuuriyaaminayaa dagaalka al-shabaab oo kula jiro madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Mudane Xasan Sheekh Maxamuud hadda wuxuu ku sugan yahay Dhuusamareeb. waxaa la leeyahay madaxweynihii beeshii oo ka dhashay oo ka soo cararay oo Dhuusamareeb iyo deegaan ka dhigtay. sababtana ayaga ah sababtoo ah dagaalka daacad kama ah, siyaasad iyo dana kale aan waxba u tarin ay ku mashquulsan yihiin. dhiigan daadanayo ee macallin iskuul iyo arday dugsi dhiganayo laga daadinayo iyo haweenka la dhibaateynayo intuba waa dana siyaasadeed. xaaladdu ay qaraar tahay. Abgaal kuma yaro duubab, dhaqan, waxgarad, siyaasiyiin iyo ganacsato iyo siyaasiyiin waaweynba kuma yaro. laakiin hadda diyaar ma ahan in ay dagaalkan qaboojiyaan oo siyaasiyiintii ayaa is haysto oo ganacsatadii ayaan israbin oo duubabkii ayaan dhinac iskula socon. ugu dambeyntii waxaan leenahay labada beelood ee walaalaha ah ee ku dagaalamaya gobolka Shabeellaha Dhexe wax badan waa lidin canaantay. wixii la idin dhihi karo waa la idin dhahay. run ahaantii waxaan idin dhihi lahaa ugu dambeyntii Ilaahay ka cabsada, dhiigga muslimka aad daadinaysaan joojiya. maantay siyaasi yar oo dan leh dartiisa haddaad dad u dishid, hanti u burburisid, aanqira ayaa lasoo istaagayaa. waxaan ugu baaqayaa si shuruud la-aan ah labada beelood inay dagaalka joojiyaan. waayahay qodobka ugu dambeeyana Cali Yara Cali iyo Saadaq John ayaa meeg toos isku qaatay markii la aqoonsaday ee bayaan ka soo baxay dowladda dhexe oo sheegay wasiirka arrimaha gudaha Axmed Macalin Fiqi in Khaatimo State loo aqoonsaday maamul kamid ah maamulada Soomaaliya ka jira. ayaa madaxweynihii hore Soomaaliya Farmaajo wuxuu soo dhigay boosti. waxaa loo maleynaya inuu hambalyeynaayo waa lagu wada duday, laakiin hambalye ma naqan. isla markii boostigaas dadka ka carooday waxaa kamid ahay Saadaq John oo asniga boostigan soo dhigay. Janaal Saadaq John Umar wuxuu leeyahay Farmaajo xasilooni darro iyo hubanti la'aan adiga ka dambayso dalkan kama dhacayso. waxaan ku dhihi lahay dadkaada dhinac ka raac, haddii kale damaacigaaga cadeymihiisa ayaan hayaa. isla markiina waxaa meeg qaatay asigana Cali Yara Cali oo difaacayo Farmaajo wuxuuna leeyahay sida tan: faro ayaan ka hayaa, dhaqan rageed ma ahan. habdhaqankaas wuxuu gaar u ahay dumarka isticmaalo social mediaha. waa xanuun daran markii ay dowlad daris ah ay ka hayso faro, waana cinqaab iyo adoonsi. taasina waxay la mid tahay Saadaq Johnow markii aad guursatay gabadha Ismaaciil Cumar Geelle, adigana faro ayaa laga hayaa oo qafdil rabo ayaa lagugu dirtaa. maagaas ayaan kusoo dhammaystirayaa barnaamijkayga. waxaad kala socoteen Samawada TV anigoo Maxamed Suudi ahna waa idin tabinayay.